halkan waa taalada halgamaa dhagaxtuur magaciisuna waa maxamed cali huud oo loo yaqiinay cali dhagaxtuur wuxuu ka mid ahaa halgamayaashii dalka u soo horay naf iyo maalba sanadooyin badan kadib waxay ka mid tahay haatan goobaha loo diyaarinayo inay martigeliyaan toddobaadka xorriyadda oo saacado qura ay naga xigaan ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa go'aansaday in dib habeen ballaaran ay ku sameeyaan taalooyinka taariikhiga ah ee dalka dibula socday muddo ayaa u muuqda mid wax weyn ka bedelay soona celiyay quruxdii iyo heybadii taalada dhagaxtuur shaqaale si hagar la'aan ah uga shaqeynaya habeen iyo maalin ayaa dhabar ku ritay soo celinta quruxda taalada caanka ah ee 26 Juun iyo 1 July lagu maamusi doono dadka soo booqanaya taalooyinka Muqdisho ka dhisan maalmaha xorriyadda ayaa dib u malacsanaya xasuustooda ku aadan halgankii dheeraa oo dalkeena soo maray marka waa runtii usbuuc aan u aragno inuu yahay usbuuc oo qof walba oo Soomaaliyeed meel buu joogo dibad iyo gudaba runtii ay sugayeen maaragtay oo ay maaragtay ku faraxsan yihiin ummadda Soomaaliyeed oo ka xorowday gumaysigii hadduu ahaan laakiin Ingiriiska iyo hadduu ahaan laakiin Talyaaniga inta mustaqbalka inaan mar labaad waxayna xusuusinaysaa burburkii nagu dhacay Soomaaliya haddaan nahay laftigeeda kadib in ay runtii ay shucuurka qofka Soomaaliga meel buu joogo oo maanta ay xusuus ay ku reebayso maalmaha maaragtay wiigaas usbuucaas 26 Juun ka bilowda ilaa iyo 1 July oo maalintii ay labada gobol ee Soomaaliyeed ay midoobeen wallahi badana taariikhda anaga aan ku soo qaadanay iskuulada iyo taariikhda sometimes secondary waa lagu dhigaa Soomaaliga waa haliyay Soomaaliyeed wax badan u soo qabtay wadanka haddana waan u jeednaa xaruntii meeshii oo asiga loo asteeyay oo hawl badan ee qurux badan ay ka socoto marka waxaan rajaynayaa insha Allah dad badan haliyay badan oo sidii dhagaxtuur oo kale inay soo baxaan ayaan insha Allah xilligaas waxa waaye dhibaato ma jirin qabiil ma jirin qori ma jirin qof walba macnaha yani wuxuu macnaha yani loolan ku galay macnaha yani uu ku tartamay waxa waaye qal adiga maxaa soo baratay iskuulka soo baxday jaamacadda soo martay waxbarashadaas ay ahayd haddana macnaha yani waad aragtaan wax yaal laakiin waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed oo jiilku cusub oo macnaha yani hadda teknoolajiyada cusub awal ma oolin hadda waa horumar la gaaray teknoolajiyada cusub la keenay marka waxa waaye in laga faa'iideysto oo maxaan ku raadayay oo dadaalka waxaan ilaahay ka baryeynaa ummadda inuu dhibaatada ka qaado 26 kan iyo tan dambeba in Soomaaliya guul iyo barbaar ay ku waarto in wadanka dhaqaale la helo in shaqo la helo in shidaalkan badda ka buuxana loo soo saaro in ummaddu iyo dhalinyaradu ay shaqo helaaniin in dawladdu ay ka shaqeyso sidii loo heli lahaa in dhalinyarada la meelayo in abaaraha lala dagaalamo in qaxootiga la soo celiyo in wax qabad la taaban karo naloo sheego Farxiyo Yuusuf Xirsi oo aan kula kulanay gudaha taalada dhagaxtuur xilli habeen ah waxay ii sheegtay in taaladan ay ka mid tahay nolosheeda Soomaalidu maanta dadkii hore u joogay ay dib wadaniyadoodii ay u xasuustaan waayay ay u galaan aniga qaasatan meeshaan xasuus gooni ay leedahay ana ubax kacaana waxaan madaxda la dhigi jiray xuska maalmaha waxa la dhigi jiray runtii waa bogaadinaya taliska asluubta hogaaminaya Jeneraal Bashiir iyo dhalinyarada aan har iyo habeenba u kala hoyanay sidoo kale Marwa Farxiyo waxay dadka Soomaaliyeed ugu baaqday in ay ilaaliyaan taariikhdooda kana qayb qaataan dib u dhiska dalkooda maanta waxay tusaysaa in ay dib u soo noqotay xusuustii Soomaaliya waxay astaanta ku lahayd taalooyinka mid walba macno u taagan yahay xawtaanka wuxuu u taagan tahay hooyo soo hartay muxuu ahaa cali dhagaxtuur baa noo dhigi jiray cali dhagaxtuur wuxuu u taagan yahay xurnimadii Soomaaliya ee qaabka ay soo qayb qaateen أحمد كوري أقوياء بوها الجماعة واليقان الصوماليات سيد سيدو كلامه كميد والبمعنى قارنه وحى يتبدل يساع نبضي أولا على نبضي نبضي ثانيا كي هرمات تنصد حالنا كسونا على شيء بشذينا أحي يدور كتب كسونا لاني يعني يرجعنا بدوان سودوين horay waxaad habeen ballaaran loogu sameeyay taalada ururka Israa'iil oo haatan qayb ka ah goobaha nasashada loogu tago si lamid ah taalooyinka xawtaako iyo dhagaxtuur ayaa waxa dib u dhiskoodu haatan u maraya heer gabagaba ah waxaana qayb ka qaadan doonaan bilicda magaalada Muqdisho iyo in dadka ay dalxiis u yimaadaan
iyagoo dib u milacsanaya taariikhdii halgamayaashii Soomaaliyeed. Cabduqaadir Shacab, warbaahinta qaranka, Muqdisho.